maaha markii ugu horeysay waddanka Mareykanku intuu waddan kala tago madaxweynahoodii soo afduubto uu Mareykanka keeno uu haddana xukumo. haddaba hore waxa uga dhacday waddanka Panama 1990kii sano kala ka dhacday. haddaynu halka sharaxaad ka sameeyno 1980kii markuu madaxweynihii waddanka Panama dhintay waxa xoog ku qabsaday ninkii generaalka ahaa ee la oran jiray Manuel Noriega la oran jiray. Noriega iskuma magacaabin madaxweyne ee wuxuu isku magacaabay taliyaha guud ee ciidanka qaranka. waxaanu sameyn jiray kolba qofku doono ayuu madaxweyne ka dhigan jiray. waa 80kii markay marayso. haddaba ninkanu Noriega haddii dul istaagno wuxuu xiriir fiican la lahaa waddanka Mareykanka iyadoo la sheegay waqtiyada qaarkood in $100,000 ay ku bixin jireen. wuxuuna u shaqayn jiray si ayada ayuu shaqayn jiray. laakiin muddo kadib uu ka hor yimid waddanka Mareykanka. haddaba waqtigu markuu marayo 1989kii markuu marayo ayuu madaxweynihii waddanka Mareykanku amar ku bixiyay in la weeraro waddanka Panama lana soo qabto Manuel Noriega. haddaba waxa la xasuustaa madaxweynihii xilliga waddanka Mareykanka xilka hayay waxa la oran jiray Bush ee waa Bushkii Ciraaq weeraray aabihii weeyaan. haddaba Mareykanku wuxuu diray 24,000 oo askari buu diray inay soo qabtaan ninka. wuxuu dagaalaman ninkaas waa laga awood batay oo orod ayuu ku galay. wuxuu orod ku galay safaaradii Vaticanku ku lahaayeen waddanka Panama. haddaba Vaticanka aqoon waa waddanka ugu yar caalamka. haddaba markuu safaaradii Noriega galay haddaba wuxuu muddo safaaradda ku jiraba wuxuu ka soo baxay safaaradda uu soo dhiibay 1990kii 3 January. waa waqtiga uu Mareykanku soo qabtay madaxweynaha waddanka Venezuela ayuu soo qabtay ninkana. 3 January ayaa la soo qabtay madaxweynaha Venezuela Maduro. ninkana waxa la soo qabtay 3 January 1990kii. waxaana la keenay waddanka Mareykanka. haddaba 1990kii ayaa maxkamad la keenay ku taalo waddanka Mareykanka. haddaba ninka waxa lagu soo eedeeyay markii maxkamadda la keenay inuu daroogooyinka iibin jiray. haddaba Manuel waxay waddanka Mareykanka ku eedeeyeen daroogada ayuu keeni jiray waddanka Mareykanka ama daroogadu ka ganacsan jiray. waxaanu xiriir la lahaa kooxdii xilliga awoodda badnayd Medellin la oran jiray oo kamid ahaa Pablo Escobar oo kamid ahaa. groupkaas ayaa lagu eedeeyay xiriir la leeyahay daroogooyinkana uu iibin jiray. sidoo kalena inuu lacagta meeri jiray oo waxa lagu xukumay 40 sano walow markii dambe laga khafiifiyay oo lagu xukumay 30 sano lagu xukumay. haddaba Mareykanka markuu 17 sano ku xidhnaa ayaa haddana Faransiiska ayaa loo dhiibay oo kan Faransiiskuna wuxuu ku xukumay 7 sano isagoo ku eedeeyay inuu lacagaha meeri jiray. markuu 7dii Faransiiska soo dhameystayna waxa lagu soo celiyay waddankiisa Panama oo isaguna ku xukumay 20 sano wax ka badan. laakiin 2017kii ayuu Manuel dhintay. waxaad ogaataa January 3 ayaa la soo qabtay madaxweynaha Venezuela. ninkii generaalka ahaa ee awoodda badnaana waxa la soo qabtay 3 January. waa isla maalin kaliya ayaa labadoodaba la soo qabtay. waana waxa maanta lagu eedeynayo madaxweynaha waddanka Venezuela Nicolas Maduro. waxaana ogaataa Venezuela iyo Panama waxa u dhaxeeya Colombia oo kaliya u dhaxaysa. waxa halka inooga soo baxaya kolba boqortooyada xilliga awoodda leh qofka waxay doontay ku eedeynaysaa xilligay doontana way soo qabanaysaa. waxaana ku muujinaysaa caalamka inay taariikhdu iyada isqorayso. wal maxay kula tahay fikirkaaga comment-ga inoo qor.